السلام عليكم ورحمة الله. indhuhu waxay ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee uu jirkeenu leeyahay. muhiimadda ay leeyihiin ayaa waxaad ka garan kartaa in maskaxda qayb badan oo ka mid ah ay muhiimadeedu tahay in waxa ay ishaadu aragto ay fasirto. markii la isbarbar dhigo dareennada kale ee jirka ayaa aragga qaybta maskaxda ku shaqo leh waxay u dhigantaa 30% maskaxda qaybteeda kore ee cortex la dhaho, halka taabashaduna ka tahay 8%, maqalkuna ka yahay 3%. marka qayb badan oo maskaxdeena ka mid ah ayaa aragga la xiriirta. haddaba su'aal ay dad badani isweydiiyaan ayaa waxay tahay haddii qofku hindhiso isagoo indhihiisu ay kala furan yihiin ma keeni kartaa inay indhuhu ka soo dhacaan. maadaama hindhisadu ay awood badan leedahay, qofku goorta uu hindhiso ayaa waxa ay hawada afkiisa iyo sankiisa ka imaanaysa gaari kartaa ilaa 8 mitir. awooddaas xooga badan ee ay leedahay hindhisadu ayaa waxa la isweydiiyey haddii isha oo furan la hindhiso dhibaato ma u geysan kartaa. horta marka hore waxaa jira xaalado hindhiso ah oo meelo kale oo jirka ah dhibaato u geystay, khaasatan dadka isku celiya hindhisada. sida nin 34 jir ah oo isagoo ay hindhiso hayso afka isku qabtay sankiisana xiray ayaa wuxuu maqlay cod ka yeeray surkiisa. dhowr saac kadibna barar ayuu isku arkay. markii uu dhakhtarka tagay ayaa waxaa la arkay inay dhibaato soo gaartay marinkii hawada, isagoo hawo ay surka dhex gashay. dalool yarna oo hawadii hindhisadu ka baxday uu surkiisa ku samaysmay. ninkan ayaa waxa uu awood u yeelan kari waayay inuu wax cuno oo tuubo ayaa cunto lagu siinayay isagoo 7 bari ku jiray cisbitaalka. waxaa kaloo jira xaalada hindhiso la isku celiyay ay waxyeello u geysatay dhagaha, sanbabada dhexdooda iyo xataa xididada maskaxda. haddaba dhakhaatiirtu waa ka digaan in qofku markuu hindhisi rabo uu afka iyo sanka isku xiro. waxaana dhici karta in hindhisadaas aad u diiday inay bannaanka u baxdo jirkaaga gudihiisa ay dhibaato u geysato. haddii marka si caadi ah uu qofku u hindhiso ayaa indhaha mar walba la isku qabtaa oo waa adag tahay in qofku marka uu hindhisayo indhaha kala furo. dad badan ayaa marka aaminsan in haddii indhaha la kala furo markii la hindhisayo ay keeni karto in ishu ka soo baxdo godkeeda. horta marka hore waa dhici kartaa in la hindhiso iyadoo indhuhu kala furan yihiin. dad badan ayaa soo bandhigay in arrintaani dhici karto. isha qayb badan oo ka mid ah waxa ay ku jirtaa gudaha oo lafta ay ku dhex jirto ayaa waxaa kaloo ku xiriirsan muruqyo fara badan oo ka qayb qaata isha socsocodkeeda. marka waa adag tahay in ishu godkeeda ka soo baxdo. iyadoo ay saasi tahay ayaa waxaa la soo wariyay xaalado dhif ah oo dad hindhisay ay ishu soo baxday. xaaladda ay ishu godkeeda ka soo baxdo ayaa waxaa Ingiriiska lagu dhahaa globe luxation. haddaad rabtid inaad sawiradeeda aragtid googlaha geli, laakiin anigu ma soo bandhigayo maadaama ay yihiin sawirro argagax keeni kara. xaaladdan ayaa waxaa keeni kara jug madaxa meel ka mid ah ama isha aageeda ku dhaca iyo weliba hindhiso aad xoogan. xaaladdan ayaa keenta in isha qayb dheeraad ah ay bannaanka u soo baxdo, laakiin inta badan dhibaato weyn ma keento oo haddii isha meesheeda lagu celiyo si caadi ah ayay u shaqaynaysaa. haddii uusan neerfaha isha ka taga ee maskaxda aada aysan dhibaato gaarin. neerfahaasi haddii uu go'o macnaheedu waxa weeye in qofkaasi uu indhabeelay. oo xubno badan oo jirka bini'aadamka ka mid ah waa la bedeli karaa si in kilid dheeraada qofka loo geliyo. isha naftirkeeda qalliin lagu hagaajin karo badankeed ayaa la samayn karaa. waxaa jirtay xaalad cajiib ahayd oo nin 12 sano araggu ka maqnaa lagu sameeyey qalliin oo intii ilkihiisa mid ka mid ah laga saaray oo dalool yar lagu sameeyey laguna dhejiyey bikaaco macmal ah. markaas kadib uu ninkaasi araggiisii u soo laabtay. ninkaas ayaa neerfaha ishiisu bad qabeen oo waxaa dhibaato ka haysay qaybaha kale. markaan u soo noqdo mawduuceeni ee indhuhu inay soo dhici karaan haddii la hindhiso ayaa waxaa adag inay saasi dhacdo. haddii hindhisada xooggeedu ay isha soo mari karto, xataa haddaad dabooshid awood uma yeelateen inaad celisid. waxaa kaloo isha ku wareegsan laf ilaalisa, laakiin waxaa jira xaalado ay laftaasi u furan tahay sanka. dadka noocaas ah ayaa u nugul inay hindhisadu indhahooda soo saarto. dadka hal mar ay ishu meesheeda ka soo baxday waa fududahay inay mar labaadna soo baxdo oo hindhiso ama qufac ay keeni karaan maadaama muruqyadii isha hayay ay dabceen. marka haddii qofku hindhiso ishiisa oo furan waxay u badan tahay inaysan waxba gaarayn, laakiin waa jiraan xaalado ay sidaasi dhacdo, khaasatan dadka muruqyada isha haya ay jilicsanaayeen ama ishu sanka u furnayd amaba ay jug soo gaadhay. marka waxaa fiican inuusan qofku isku badayin oo sida dabiiciga ah oo jirkeenu la qabsaday sameeyo, oo ah inuu indhaha isku qabto markuu hindhisayo. waxaa iyaguna jira dad indhahooda soo saara marka ay rabaan. dadkaas ayaa qayb badan oo indhahooda ka mid ah bannaanka u soo saari kara. mawsuucada Guinness ayaa haweeney la dhaho Kim Goodman oo Chicago, Mareykanka ku nool u aqoonsan inay tahay qofka ishiisa qaybta ugu badan soo saari kara.
dherarka isha marka ay soo saarto ayaa waxa uu yahay 12 milimitir. haweeneydaas ayaa jug madaxa ka gaartay isha qayb badan oo ka mid ahna ka soo baxday, iyadoo markaas wixii ka dameeyay xilliga ay habaansanayso iyo marka ay rabtaba ay awood u leedahay inay isheeda soo saarto. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi